xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay sababta ay uga joojiyeen Ismaaciil Hurre Buuba oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka wadani inuu ka dhoofo gegida ay diyaaraduhu ka haadaan ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Haddaba wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo qaar kamid ah warfidiyeenada kula hadlayay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka jawaabay waxa uu yiri Ismaaciil Buuba waynu garanaynaa dalka deyn badan buu ka maqnaa koonfur wuu yimido dalkiisii uu soo noqday xisbiyada siyaasaddu ka qayb galay baasaboor Soomaali weynaan kaga baxay airportka Hargeysa isaga iyo qeyrkii toona ka aqbalay diblomatic baa mise waa baasaboor diblomatic oo Soomaalidu leedahay Soomaali weyn leedahay mukeenan qaato isaga waa ka joojinay حق بولي إنه كوي نقاطه باسابور كسومالنا نقاطه لكن باسابور سوماليا هي هرجيسك كدو فيها أنا جو سياسي سرير سومال لنا إذا بقى عقلي ندبل ما يناينا ردوا إنجليز كانوا سيدنا وحلقات كراكتشي بوتي الضلال كان كلوا حلقات كرا رك بدنا ده موادين هو رئيس سومالنا دول ناشنال تكون نقولها لكن كسوماليا مو قولي وطني إذا كنت حركة المجرد ما وطني ما هدو أهان لها كل مية هدو أنا أهان لاين لقبته. هذا مرة ورفيدينadu wax ka weydiiyeen wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland basaameynta uu shubambiyoodku ku yeelan karo doorashooyinka la filayo inuu ka qabsoomaan Soomaaliland ayaa waxa uu ku jawaabay markale awaarihii baynu niri hal wado shubambi wuxuu doonaba haade kulay doorashadu way dhacaysaa madaxweynaha Soomaaliland si kasta yani way ga go'an tahay buu dib u dhici mayso wax la korinayaan ma jiraan Hargeysa waa taro ilan dixdayna haday doonaan dadkeenu ka cabayaane saddex qof ay la hadda la sheegay hore dib oo kala fog biyodka ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolada Togdheer iyo Awdal laga soo sheegayo in shubambiyoodkaasi dad u geeriyoodeen Khalid Yusuf Xasan Fantastic Television caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.